soo dhawaada daawadayaal fiid wanaagsan qodobada xiisaha leh caawa aad halkan ku daawan doontaan haddii ay baraali laga helo kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah ciidamada kaydka ee beeshiisa ugu badnaa ayaa hadda soo gaaray gobolka Awdal xilli halkaasi dagaalo xoogan ay ka socdaan dhowrkii saacadood ee u dambeysay haddaba maxaa halkaasi ka soconaya muuqaalkan ayaan saaxiibayaal idin kula wadaagi doonaa sidoo kale qodobada kale ee xiisaha leh caawa aad halkan ku daawan doontaan haddii ay baraali laga helo waxa ugu waaweyn ciidanka beeshiisa ayaa hadda furtay gaadiid hub u siday ciidamada maamulka Somaliland haddaba halkee ayaa lagu qabtay gaarigaasi gaari noocee ayuu ahaa hub noocee ayaa saarnaa ciidamada loo waday halkee ayay iyaguna ku sugan yihiin oo ku haya faahfaahinta xogtaasi sidoo kale qodobada kale ee xiisaha leh caawa halkan ku daawan doontaan haddii ay baraali laga helo waxa ka mid ah ugaaska beeshiisa ugaas Mustafa Cabdi Ibrahim ayaa gabi ahaanba diiday wax la yiraahdo heshiis oo ay horay maamulka Somaliland ay u soo jeediyeen kaartadaasina lagu gaaday ciidamada beeshiisa ayuu gabi ahaanba sheegay in wax heshiis uusan qaadan doonin ugaaska beeshiisa maxaase ku kalifay muuqaalkan ayaan saaxiibayaal idin kula wadaagayay soo dhawaada aniga waxaan ahay Abdiraxmaan Lisbon halkan aad iga daawanaysaan waa kanalkayga Macaash Media haddii aad markuu ugu horreysay fadlan kanalkan rukumo oo subscribe dheh muuqaalkan aad daawanaysidna la garaysiin share garay oo saaxiibada la wadaag mahadsanid daawade hagaag aynu ku bilaawno ciidankii ugu badnaa ee kaydka beeshiisa ayaa markan soo gaaray gobolka Awdal xilli ay halkaasi dagaal goosgoos ah uu markaa u dhaxeeyay ciidamada maamulka Somaliland iyo waliba sidoo kale kuwa geesiyaasha ciidamada madaniga ee beeshiisa halkaas oo ay ku wada dagaalamayaan ayaa ciidamo markaasi la arkayay kuwa beeshiisa oo halkaasi soo gaaraya kuwaas oo qayb lixaad ka qaadanaya dagaalka xoogan ee halkaasi ka soconaya dhowrkii maalmood ee u dambeeyay ciidamada beeshiisa ayaa dhan walba waxa ay isugu hubaysay ama isugu diyaarisay sidii ay isaga caamil lahaayeen maleeshiyaadka beesha Samaroon xilli lagu arkay dagaaladan ciidamada kuwa maamulka Somaliland oo dhowrkii maalmood ee u dambeeyay dagaalkan si adag markaa uga qayb qaadanaya xaaladda ayaa hadda ah mid aad u kacsan xilli ciidamada markaasi gurmad badan oo ciidamo badan oo ka tirsan beeshiisa ay soo gaareen gobolka Awdal dagaalkana qayb ka mid ah deegaanada ay halkaasi isku fidiyeen ciidamadan ayaana dagaal adag iyo haradan adag ugu jira sidii ay u hirgelin lahaayeen maamulka Goban State si lamid ah sidii ay markaasi ay ugula wareegi lahaayeen dhul baaxadiisa leh hirgelinta buuga heer ciise waxyaabahaas oo idil ayaa hortobintooda ay u leedahay tan iyo markii ciidamada beesha waa markaasi ciidamada maamulka Somaliland ay dagaalka ku soo bireen waxa ay markaasi ay dalbadeen ciidamo gurmad ah iyo waliba sidoo kale kuwa qayb ka qaadanaya dagaalkan dad dhalinyaro ah oo beeshiisa ka soo jeeda ayaa sidoo kale iyana qorteen ciidamada iyo waliba sidoo kale difaaca deegaanadooda balse xaaladda ayaana naqanaysa mid ay hadda cabsi badan ay abuurayso walow ciidamo tiro badan hadda lagu arkayo maamulka Somaliland ciidamadoodana dib ay u gurteen kadib markii gurmad soo gaaray ciidamada beeshiisa oo ay halkaasi si weyn ugu dagaalamayaan gobolka Awdal haddii aan fiirina ciidamo ka tirsan kaydka beeshiisa ayaana lagu soo warinayaa in ay si rasmi ah ay u gaareen deegaano ka tirsan gobolka Awdal arintaasi oo sii kordhisay xiisada ka taagan gobolka oo markaasi wararka hordhac ah waxa ay sheegayaan in ciidamada ay ka yimaadeen dhulka beeshiisa ay degto isla markaasna ay ujeedkooda uu yahay xoojinta awoodda military ee ay beeshiisa ay kula jirto dagaalka adag ee maamulka Somaliland ciidamadiisa horey ayay sidan oo kale guuldaro qaraar waxay u dhansiiyeen maleeshiyada beesha Samaroon iyagoona halkaasi askar iyo waliba sidoo kale hub kala duwan looga wareegay haddase maamulka Somaliland ayaa taagan tahay kuwaas oo ay hadda mar walba isu soo hormarinayo oo doonaya in ay dagaalkan ay qayb lixaad ka qaataan balse ciidamada geesiyaasha beeshiisa oo aad u foojigan ayaa durbaba markaasi ka hortag iyo waliba iska caabin ku sameeyay iyagoona guul weyn ka gaaray haddase ciidamadan waxa ay garab iyo gaashaan u noqdeen beeshiisa iyagoona hadda guud ahaan deegaanada gacan ku heynta beeshiisa ay gacanta ku hayaan dhanka kalena haddii aan fiirina daawadayaal ciidamada beeshiisa ayaa hub ka furtay maleeshiyada ee maamulka Somaliland kuwaas oo dhowrkii maalmood ama dhowrkii bilood baan raani tan iyo bishii barkeysneed Ramadaan waxay si toos ah ugu soo biireen dagaalka marka hore beeshiisa waxa loo sheegay in nabadda ay qaataan markii qoryihii ay dhulka dhigeen waxa ay naqatay in dadkii ay iyagu iska ilaalinayeen mooyane
kuwii nabadda sheegayay ayaaba durbo babaash ka bilaabay oo iyagana maaragtay difaacada kaga xirtay oo iska caabiyey kana adkaaday marka loo fiiriyo haddase waxa ay doonayaan in ay qayb ka qaataan dagaalkan oo ay markaasi doonayaan in beesha ciise ay kusoo afjaraan walow ay beesha ciise aysan qaadanin dhiildhiil iyo weliba sidoo kale in si fudud deegaanadaasi loogula wareegi karo haddana waxaa muuqato ifafaalaha awood kaloo qarsoon inay leeyihiin beesha ciise oo ay haddu si weyn isku fidiyeen deegaanada ciidamo tiro badan ay helayaan hub kala duwan waa gaari hub wada ayay markaasi ay lahaayeen beesha waan raadi beesha ciise ay qabteen waxaana lahaa maamulka Somaliland ayaana loo waday deegaanka ama tuulada Heemaal iyo waliba sidoo kale Boram inta u dhaxaysa iyo gaarigan saarufka ah loo qabtay hub ayuuna u waday oo taargada Somaliland ayaana ku shabadeysneed ciidamada beesha ciise ayaana gacanta ku dhigeen oo hadda ayaga ayaa markaasi gacanta ku haya oo ay sii controlayaan iyagoona dadkan ay isku dayaan inay baxsadaan balse laakiin ciidamada geesiyaasha beesha ciise ay gacanta ku dhigeen saddex nin ayaa gaariga saarnaa hubka noocyadiisa kala duwan ayayna wateen waxa ay sheegeen in dad deegaan ay iska leeyihiin oo ay iyagu isku difaacayaan balse laakiin waxa ay sheegeen beesha ciise inaysan waxaas jirin oo ay yihiin kuwa ciidamada maamulka Somaliland loo wado maadaama tan iyo bishii barkeesneed ay halkaasi soo gaareen waxa markaasi la fahansan yahay in sanadii military ay ka gooday oo ay naqatay in gaashaan iyo gurmud bay ahaan ay u socdeen balse ciidamada geesiyaasha beesha ciise ayaa soo afjaray gaarigana gacanta ku dhigay dadkaasina gacanta ku dhigay hubkii military ay wateenna ay gacanta ku dhigeen balan fiirino dhanka kale ila deegaanka ayaa tilmaamaya in ciidamada beesha ciise ay qabteen gaadiid siday hub iyo weliba sidoo kale saanad military oo la sheegay inay lahaayeen ciidamada maamulka Somaliland inkastoo Somaliland aysan xaqiijinin ama ila kale oo markaasi ay si madax bannaan aysan u xaqiijin haddana waxaa jirto warar hordhac ah soo ifbaxaya khasaarooyin oo tiro markaasi badan oo horey loo gaarsiiyey iyo gaadiidkan laga qabtay ayaana iswaafaqaya marka loo fiiriyo dhacdooyinkan ayaa sii hurani karta xiisada dagaaleed midda colaadeed ee ka taagan gobolka Awdal walow ay hadda xaaladda u muuqato mid looga awood sheeganayo ciidamada maamulka Somaliland kuwaas oo hadda sida ay wax u socdaan awoodda dagaaleed iyo waliba sidoo kale midda military-ba looga awood sheeganaya qodobkeena ugu dambeeyana saaxiibayaal haddii aan fiiriyo ugaaska beesha ciise ugaas Mustafa Cabdi Ibrahim ayaa gabi ahaanba diiday wax la yiraahdo heshiis inuu la galo maamulka Somaliland Malaysiada beesha Samaroon iyo Gadabursi oo yana qayb ka ah dagaalkan balse xaaladda ugaaska ayaana uu ku tilmaamay in wax loo dul qaadan karin ay tahay xaaladda oo ay hadda markaasi ay ka wadaan gobolka Awdal iyo Salil iyagoona maamulka Somaliland ay qayb lixaad leh ay ka qaadanayaan in hurinta dagaaladan iyo waliba sidoo kale in ugaaska go'aankaasi cad uu qaato ugaaska ugu sareeya beesha ciise ugaas Mustafa Cabdi Ibrahim ayaa si weyn ugu hor yimaaday wax heshiisa taas oo ay markii ay awood isku dayeen inay ku maquuniyaan ay ka adkaan waayeen ayay markaan sheegeen in heshiiska maaragtay mar walba nabadda la qaato ay tahay wax wanaagsan balse ugaaska ayaa sheegay in horey looga baahnaa oo aysan hadda diyaar u ahayn oo ay iyagu diyaar ay u yihiin inay dagaalamaan xaaladan ayaana markaa naqanaysa mid cabsi badan ee ku abuurtay ciidamada geesiyaasha waa ciidamada markaasi maamulka Somaliland oo cabsi badan ay hadda dareemayaan ugaaska beesha ciisana uu sheegay in wax heshiis haba yaraatee uusan qaadan doonin dhowrkii bilowda u dambeeyay ayaa dagaalo karkar ah ka socday gobolka Awdal iyo Salil qeybo ka midana waxa ay kuwa holcaya ugaaska beesha ciisana waxa uu sheegay in ciidamada madaniga uu haysto intii uu haysto uusan qaadan doonin wax heshiisa maxaa yeelay tii lagu sameeyay ayuuna ahaa haddii aan fiiriyona sidoo kale ugaaska guud beesha ciise ugaas Mustafa ayaana lagu soo waramayaa in uu si cad ah u diiday heshiiska la sheegayay in uu markaasi dhaxmarayo dhinacyada ka tirsan beesha Samaroon wararku waxa ay markaasi sheegayaan in ugaasku uu markaasi ku adkaystay in la qaadi karin heshiis kasta oo aanan si buuxda ugu markaasi turjumaynin danaha iyo waliba sidoo kale cabashooyinka beesha ciise taas oo muujinayso kala aragti duunaanta xoogan ee ka dhex jirta dhinacyada kala duwan ee halkaasi isku haysta xiisadan ayaana imaanaysa xilli ay horey u jireen khilaafaad dhuleed iyo waliba sidoo kale mid siyaasadeed oo u dhexeeya beelaha ka wada dagaalamaya Awdal dhaqdhaqaaqyadan military iyo qabashada hubka iyo waliba sidoo kale diidmada heshiisyadan
ayaa markaasi dhammaantooda tilmaamayaan in xaaladdu ay u jiheysan karto mid kasii darta haddii aanan xal degdega laga gaarin. dhinacyada dhaqan iyo weliba sidoo kale siyaasadeed ayaana la filayaa in ay dadaal dheeriya ay ku sameeyaan, inkastoo aysan u muuqanin mid aan waxba laga qaban karin. haddana waxa ay noqon kartaa xaaladan mid markaasi la dejin karo haddii si qoto dheer loo fiiriyo, maxaa yeelay beeshiisa marka hore waxay ogolaayeen inay heshiis galaan, in ay maaragtay ay naqdaan kuwa markaasi loo taliyo, balse laakiin sida ay muuqato waxaa dhacday in dhabarjibin lagu sameeyey, taasna ay u diidan yihiin. daawaday haddii aad halkan nala soo gaartay runtii waxaa tahay qof qalbi wanaagsan, waxaa sina xasli kaaga codsanayaa inaad kanalkan soo subscribe gelisid oo muuqaalkan la garay siin share garay saaxiibadaada la wadaag oo ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan ka mid noqo saaxiibada cusub ee 5,000 oo subscribe-ka ay gaarsiin lahayd wax yar oo keliya ayaa nooga dhiman. waa waxaan ka badnayn 100 qof ka mid noqo saaxiibada cusub ee 100,000 kun ay gaarsiin, waa 100,000 qof ee soo subscribe garin lahaa oo na gaarsiin lahaa 5,000 oo subscribe. oo ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan.